annaga go'aansanay oo taladayada qaadanay inaanu ku dagaalano sharaftayada inaanu u dhimanno laakiin inamada aad halka keenaysaan ee hooyooyin ku goblamayaan ee qaar asay ku qaadayaan ee qaar ku agoomobayaan aan garanayn sabab ay u dhimanayaan dagaalka ka socda laascaanood uu guuleysanaya guushiisuna dheeraan mayso taladeeda deegaanka iyo dadkaana waxaa wadale intii u dhimatay idinkama lihin ambaliyo maalinta xorriyadda waxaan jeclahay inaan hambaliyeeyo oo aan ku koobo hadalkayga horumarka ay samaysay dawladda Puntland ee dawladihii kala dambeeyay midiba ay wax ku kordhisay iyo halka ay maanta marayso oo ay tahay mid lama jeerto laguna mahadiyo wixii hogaankooda iyo madaxdooda dalkooda iyo dadkooda ay u qabteen walina ay dhiman tahay hiigsi aad u dheer loona baahan yahay wada jir midnimo iyo in la wada shaqeeyo la isuna dulqaato intaas aan taa kaga gudbayaa markaan intaa ka gudbo waxaan runtii jecelahay oo aniga maanta si gaar ah ii taabanaysa bulshada reer Puntland oo ugu horeeyay madaxweynaheeda madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha wakiilada iyo dhammaan shacabka reer Puntland sidii ay u garab istaageen walaalahood iyo dadka ay ehelka yihiin ayna uga dhiidhiyeen dulmigii lagu hayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maalin hore oo maalintii aan resignation ka bixinayay hadalkii aan jeediyey waxaan runtii ka xumahay inaanan ku xusin gudoomiyaha golaha wakiilada saaxiibkay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ahaa raggii hoggaan qaaday gurmadkii soo gaaray gobolka oo ciidamadii ugu horeysayna qayb ka ahaa abaabulkeeda iyo taakulaynteeda mar walbana guubaabo iyo taakule la garab taagnaa waxaan leeyahay aad baan kugu mahadnaqayaa adiga iyo shacabka reer Puntland ee aad matasho ee golaheedii wakiilada aad madaxda u tahayba waxaan mahad ugu naqayaa run ahaantii dhalinyarada ka kala yimi qaybaha kala duwan ee Puntland ee maalintii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabo 20kii bishii labaad ilaa iyo maanta ku jira difaaca iyo safafka hore ee garab taagan hilkana la garab taagan ehelkood iyo dadkoodii waxaan runtii aad ula yaabay warar ka soo baxayay taliska ciidanka ee Hargeysa iyo madaxweynahooda maalmo dhaweyd oo ay tababaro u xidhayeen dhalinyaro aan isleeyahay xabaashooda la soo fogeeyay oo ay tilmaameen markii uu hadlayay uu sheegay inay awal gobonnimo dagaalamayeen laakiin hadda wixii ka dambeeya ay gudnimo dagaalami doonaan waxaan leeyahay ninna wuxuusan ahayn ma doono anigu oran maayo awalba gobaad maad ahayn afkayga laga maqli maayo laakiin waxaan leeyahay haddii ay jirto oo u dudayso gudnimo ku hadhay oo aad u dagaalanto intii aad samaysay ka baxsan waxba ha hamran baan oran lahaa ninka taliyaha ah madaxweynaha maamulka oo sheegay in shacabka ay u turayeen waxaan leeyahay gabay waadan carablahaaba waxa ku jirtay mar haddii ay tacshiirada dhacdo oo taageeruhu liicumanin loo turaanahay aniga ay tayada noqotay waxaan leeyahay turaal inooma dhaxeeyo waxa aad geysateen waxaad ku dartaan oo maanta aan isleeyahay way u ciil qabaan ma jirto wixii tamareedun ku haray aad keenteen oo kuwa ugu dambeeyay aan sheegay xawaalahooda fogeyseen kamid yihiina diyaar baan u nahay laakiin mar walba mas'uuliyadda waxayna faraysaa inaanu nidhaahno war halka aad ku soo socotaan meel aad xaq u leedihiin aad u soo socotaan maaha annaga go'aansanay oo taladayada qaadanay inaanu ku dagaalano sharaftayada inaanu u dhimanno laakiin inamada aad halka keenaysaan ee hooyooyin ku goblamayaan ee qaar asay ku qaadayaan ee qaar ku agoomobayaan aan garanayn sabab ay u dhimanayaan waxaanu idin kula talinaynaa intii goortay inaad la noqotaan haddii ay taa diido waxaan u malaynayaa nin walba wuxuu hayo unbuu golaha la iman doonaa insha allahu tacaala annagana waxaanu aaminsanahay waxaanu u dhimanaynaa inay tahay xaqaanu leenahay inay tahay sharaftayadii inay tahay difaaca dadkayaga iyo maatadayadii arrinta iyada ah
waxaan u xusuusinaysaa marka uu ninka la yiraahdo fankii iyo baankii badnaa ka muuqday ninka la yiraahdo Muuse Biixi hadraawi baa gabay ilaah waxa ku jirtay haddii aan dhufaan isku sayday dhabidii dhirta maan jajabiyo aan badhoosha ka cartamo waxaan leeyahay warday adigu maanta aad baanayso adigoo dhibaatada inta la eegeystay adigoo aan u dhalan inaad baanto waxa aad naga fili karto garan maayo insha Allah taala waxaan leeyahay oo aan dadka reer Puntland aan hor joogay madaxdooda u ballan qaadayna dagaalka ka socda Laascaanood uu guuleysanaya guushiisuna dheeraan mayso taladeeda deegaanka iyo dadkana waxa wada leh intii u dhimatay idin kama lihin insha Allah taala waxay noqon doontaa munaasabadeeda inaynu u dabaaldegno oo ku dabaaldegno gogashaynu isugu nimaadnaa ay noqoto magaalada Laascaanood ugu dambeyn waxaan hambaliyaynayaa maanta ama caawa in markii ugu horeysay lagu qabto xafladda xuska 1 Luulyo magaalada Laascaanood waxaan aad uga xumahay dadkaas ku jiray waqtiga farxadda leh saacadaha aynu soo dhoofnay in maamulku duqeynayay goor habeenimo magaalada laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fiktii u dambeysay rafadkay rafanaysay dhaqsana looga gudbi doono waqtiga runtii ciriiriya wax badan aan oran lahaa